dalka Imaaraadka Carabta ayaa tijaabinaya diyaaradaha loo yaqaan droniska ee aanu duuliyaha lahayn nooc ka mid ah oo daruuraha marka ay u baxaan ku sii deynaya maayad danab ah oo dhaliso roob. dalka Imaaraadka ayaa hore u adeegsanayay tiknoolajiyada daruuraha bacrimiya, waxaana daruuraha dusha lagaga daadinayaa cusbo si loo cariyo in ay darooraan. agaasimaha waaxda cilmi baadhista curinta roobka ee Imaaraadka Aliya Al-Mas'uuri oo la hadashay warbaahinta ayaa tiri qalab danab maayad ah sii deynaya ayaa lagu rakibayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo joog hoose ku duulaya, waxayna arrintaasi carinaysaa in daruuraha biyo sii daayaan. daraasadan ayaa waxtarkeeda la qiimeyn doonaa iyadoona rajo laga qabo in lacag badan oo dheeraad ah lagu bixiyo si diyaarado kuwan haatan ka waaweyn loo sameeyo mustaqbalkana la adeegsan karo.